halkaa ilaa halkaa saddexdaas aad bay muhiim yihiin inta kalena waa intanu bay hoos imanayaan waa qaacidadii marka proper fraction waa jajab quman baa la dhahaa jajab quman af Soomaali waa jajab quman inuu jajab quman yahay maxaad ku garanaysaa hooseeyaha ayaa had iyo jeer weyn sareeyuhu wuu yar yahay adiga arkaya hooseeyaha weyn had iyo jeer kaas waa 3 kana waa 4 adiga arkaya kan waa 3 kana waa 5 kan waa 5 kan waa 7 doodasna waa sii soconaysaa iyo wixii la midkaa weji marka had iyo jeer labadooda kay weyn denominatorku iyo numerator hooseeyaha iyo sareeyaha had iyo jeer hooseeyaha weyn denominatorka weyn oo markasta saasaad ku garanaysaa maxayna proper fraction improper fraction waa jajab maqumane kaas wuxuu ahaa jajab quman kan jajab maqumana la dhahaa jajab maqumane maxaad ku garanaysaa had iyo jeer isaga sareeyihiisa ayaa weyn hooseeyihiisuna uu yar yahay adiga arkaya waa 9 xagana waa 5 kan waa 7 halkana waa 3 markaste improper fraction hadii lagu dhaho maxaad ogaanaysaa sareeyihiisu weyn yahay hooseeyihiisuna yar yahay doodaasna way sii socon kartaa weji mixed fraction iyo mixed number ba hadii lagu dhaho waa isku mid waa tira dhafan baa la dhahaa Soomaali tirooyinka dhafan marka qaacidadu leeyahay b over c markaas marka lagu siiyo sidoo kale waa dhigan doonaa insha Allah ayaa waxa la isticmaalayaa marka ugu horeysa c oo lagu dhuftay maxayna c oo lagu dhuftay a oo loo geeyay b c oo lagu dhuftay a oo loo geeyay b marka oo loos dhigay c deedii oo caadiya ayaan ay noqonaysaa qaacidadeedu marka lagu siiyo number kasta oo lagu yiraahdo ka shaqe u fiirso xagana waa maxayna multiply same number marka number isku mid lagu dhaho ku dhufo jajabka waxa la yiri a over b times c over c labadan ba ay waa hooseeya mid kasta c ba raacsan c iyo c maxaa dhahna marka ayar baad isla saar adoo isfireerin baad isla saaraysaa labadaas maxay soo haray meesha waa a iyo b bay soo haray intaas ila mid marka adii same denominator isku darka marka isku darka addition baa lagu dhigi karaa sum baa lagu dhigi karaa magacyo badan bay leedahay marka lagu dhaho isku dar magacyo fara badan bay leedahay waan dhigan doonaa insha Allah marka waa hooseeyo markuu isku mid yahay hooseeyaha markuu isku mid yahay the same denominatorki waa hooseeyaha adiga arkay waa c iyo c labadaas c mid baad ka soo qaadanaysaa sareeyaha isku keenaysaa a oo loo geeyay b yeelamada labadii hooseeya waa isku mid iga soo qaado different markuu yahay addition was la isku darkii weji addition different number markuu yahay waa a over b plus c over d isweeyar baan isku dhufanaya marka waxaan dhihi a baan ku dhufan d adiga arkaya waa a times d oo loo geeyay baan dhahayaa c oo lagu dhuftay b oo la hoos dhigay labadana la isku dhuftay waa inta qaacid marka noo maxayna subtraction weji same denominator marka uu hooseeyo isku mid yahay waa kala jaritaanka weji subtraction isaguna magacyo badan buu leeyahay waan dhigan doonaa subtraction difference hadii lagu dhaw waxyaalo badan buu leeyahay magacyo badan oo loo yaqaano waan dhigan doonaa markuu hooseeyo isku mid yahay mid baan ka soo qaadanayaa c iyo c maxay la mid tahay a oo laga jaray b baan dhahayaa oo loos dhigay c khalaas marka numberkii lagu siiyay waa a baad ka tiri halka waa numberka i yaala a xagana waa numberka b i yaala labadana numberna waa isku mid waa isku eegyihiin marka waad kala jaraysaa labada numberna mid baad ka soo qaadanaysaa markuu kala dugan yahay hooseeyo ama numberada kala dugan yahay maxaa dhahnaa criss cross man isku dhufanaa isweydaar maxaan dhihi a oo lagu dhuftay d adiga arkaya c oo lagu dhuftay b marka waa a oo lagu dhuftay b oo laga jaray baan dhahnaa c oo lagu dhuftay b oo la hoos dhigay b oo lagu dhuftay d inta way qaacidadiisu qaacidada waa la xafidaa formulada waa la xafidaa sida 10 kugu fudaado multiplication of fraction isku dhufashada asna magacyo badan buu leeyahay sida product oo kale waa magacyadiisa isku dhufash marka hadii lagu dhaho product
isku dhufan lagu weydiiyey magacyadaasna waan dhigan doonaa insha allah. Kanna waa maxayna sidaa uu yahay baad isku dhufanaysaa toos. A baad igu dhufan maxayna C, B baad igu dhufan D. bas saan baad isku dhufanaysaa wixii lagu siiyo sidaa un baad isku dhufan siduu yahay. Kanna waa division of fraction, isku qaybintii way jajabka. Isku qaybinta markaas isna magacyo badan buu leeyahay oo divided aad u taqaano qaar badan buu leeyahay waan dhigan doonaa. U fiirso isku dhufashada markaan marano in yar isku qaybaan u jeeda aan dhahano waxaan dhahnaa marka ugu horeysa intaas waa C over D waa rogaya marka reciprocal baan sameynaya rogaal. Halkay Cdu ii taala maxaan sameynay Ddan geyn, halkay Cdu ii taalana halkaa Ddan keeni. Markaas sumadan way isbedeliyo isku dhufay noqoni. A over maxaan dhihi A over B times baan dhahayaa D over C. Marka labadan toos baan isku dhufan labadana toos baan isku dhufanaya.